بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولليال waxaa inoo bilatay oo inoo bilaabantay bishii Ramadaan ee barakaysnayd. bisha Ramadaan waa bil ka duwan bilaha kale 12 bilood ee kale bil ka duwan weeye. marka waxa ka duwani waa cibaadada uu la imanayo qofkan muslimka ah, fadligeedu waa ka duwan yahay, ajirkeedu waa ka duwan yahay. marka waa bil loo baahan yahay qofku noloshiisa inuu wax ka bedelo, dadaalkiisa inuu wax ka bedelo, isagii oo raadinaya naftiisa wax u raadinaya, ilaahayna ugu dhawaanaya cibaadada iyo amalka wanaagsan. walaalayaal, bisha Ramadaan waa bil amal, waa bil cibaado, maaha bil hurdo iyo maaratay wahsi iyo kasala maaha. waxaan qaadanaynaa walaalayaal dhacdooyinkii bisha Ramadaan dhacay ayaan qaadanaynaa si ay tusaalayaal inoogu noqdaan aan ka tusaale qaadano dadka wanaagsan ee ahlu khayrka ay inna bishan ahayn bil ay seexanayeen, bil ay amalka ka gaabinayeen, si aan u aragno inaan ahayn. dhacdada ugu weyni bisha Ramadaan dhacday waxay ahayd in Ilaahay subhanahu wa ta'ala Qur'aanka Kariimka uu soo dajiyay. bishani waa bishii Qur'aanka Kariimka weey. Ilaahay baa wuxuu yiri shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda والفرقان. soo dajinta quraanka la soo dajiyay bisha Ramadaan waxay tusaale u tahay in ay bishani bilaha kale ka duwan tahay. Ilaahay waxa uu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadri. Ilaahay waxa uu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. laylatul qadri baa lagu sheegay in la soo dajiyay quraanka Kariimka. layla mubaraka ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay. waxa la sheegay Ilaahay uu sheegay bisha Ramadaan dhexdeeda in quraanka la soo dajiyay. marka soo dagitaanka quraanku uu soo dagaayay laba siyaabood ayay ahayd. ta koobaad wuxuu ahaa nuzuulka koobaad wuxuu ahaa in Ilaahay quraanka uu soo dajiyay isagoo oo dhameystiran oo kaamila وكسو دجيه من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا بيت العزة وصمد سوكي كيالا إن إلهي سبحانه وتعالى وكاني نزول كالبعضنا وحوها نزول سود دقاي مفرق إساقي أو كل بإني أي سود دقايسي ولغا سود دجينايي من بيت العزة لغا سود دجينايي الرسول كان لغا سود دجينايي صلوات الله وسلامه عليه. وحولي ابن عباس أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان سيدا إلهي وشاقي إلى سماء الدنيا بالو سودجيي ساقي أو جملة واحدة ساقي أو دمايستران أو تاما أيالا سودجيي ثم أنزل منجما أيوري ساقي أو هدنا قيب أيالا سودجيي كل با قيبت إلهي وطلقلي باهدا بلي آذا كأيني بوحسو أيو إلهي سبحانه وتعالى أو سودجيناي. maxaa loo soo dajiyay quraanka soo dajinta la soo dajiyay min as-samaa oo min al-lawh al-mahfuz laga soo dajiyay ila samaa'i dunya isagii oo dhameystiran ujeedadu maxay ahayd. dhowr arimood ayaan sheegaynaa. arinta koobaad waxay ahayd in Ilaahay uu ogeysiiyo una sheego ahlu samaawaadka malaa'ikta in loo sheego in uu yahay kitaabkii ugu dambeeyay رسالة إلهي حنبارسان لون سودجيي على خاتم الأنبياء اللي سودجيي رسول كي إلهي وكو ختمي أنبياء إن إلهي كو سودجيي لون سودجيي يعني وحويا أشرف الأمم ومضها ومضي وغو شرف بنيد إن لغو سودجيي أيو إلهي تسينايي ملائكتا يا أهل السماوات وحكالو إلهي تسينايي ملائكتا يا أهل السماوات سيدا أو إلهي سبحانه وتعالى أو إلالينيو بني آدنك أو نحريسانيو maxaa yeelay quraanku waa dastuurkii Ilaahay u dhigay bini aadankana ugu talagalay in ay ku dhaqmaan. dastuurkii Ilaahay weey nolosha bini aadanku inay hagaagto oo bini aadanku ay ku hanuunaan ayuu Rabbi subhanahu wa ta'ala ugu talagalay. marka quraanka soo dajintiisa la soo dajiyay من اللوح المحفوظ لغا سو دجيه الى بيت العزه لو سو دجيه سو دميستران او تامه كامله
وحويان وحيعضين تتحي سيدا أو إله أقود عليه سبحانه وتعالى بني آدنك وهنونين أيو أو وحي أباهنايين إلهي سبحانه وتعالى وصور عنه على مدى اللباد كسوغان سودجينتا إلهي سبحانه وتعالى أو قرآن كيسوغو لما يستر مرقو لهاتي أو سودجيي أو إلى بيت العيسى أو سودجيي وحال تسايي أهل السماواتك ملائكة وحال تسايي قيمك إيا فضلك أو كتاب كان أوليهي إنه فضلك سويهي قيمه سنة أو سريو أي لتسيني ملائكة إلهي سيدا أوجد مركي أي سودجيس سورة الأنعام هو سورة مكية مكي كسودكتي waxaa la soo degay galbinayay 7 kun oo malag ayaa garab socday suurada ay markii ay soo degtay ibn Abbas wuxuu yiri nazalat suratul an'am bi makkah suratul an'am makkah ay ku soo degtay laylan habeen bay soo degtay jumlatan iyadii oo dhameystiran ayay soo degtay hawlaha 70000 malag 7 kun oo malag ayaa galbinayay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u tasbiixsanayay سؤال waxay tahay calaaqada ka dhaxaysa quraanka iyo bisha ramadaan waa bishii ilaahay uu quraanka soo dajiyay ilaahay uu yaani waxay tusinaysaa bisha soo dajinta quraanka la soo dajiyay fadliga ay bishani leedahay waa bishii quraanka sida awgeed ba waxa ay tahay maadaama quraanka la soo dajiyay bishan ramadaan in ay bishani noqoto bishii quraanka aan akhriyayni bishii quraanka aan yaani ku dadaalayay in ay noqoto ilaahay waxa uu yiri qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi illahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim kitaabkani waa kitaab nuur ah wa kitaab lagu hanuunayo waa kitaab ay ku jirto nolosha qofku ay ku jirto waa kitaab ay ku jirto hadii aad ku dhaqanto oo aad ku amal fasho aad ku badbaadayso oo aad ku liibaanayso bishan ramadaan waa bishii ilaahay oo quraanka oo soo dajiyay subhanahu wa ta'ala marka hadii aan hanuun doonayno hadaan liibaan doonayno hadaan doonayno inaan ilaahay ugu dhawaano amal waa inaan quraanka ilaahay ugu dhawaana wa khaasatan bishan ramadaan nabiguna alayhi salatu wasalaam wuxuu ahaa quraanka kii akhriya in ka badan bilaha kale ila nabiyul malaku jibril ayaa uu imanayay oo la akhriyay nabiga alayhi salatu wasalaam quraanka quraanku waxa weey waa dawo qulubta daweeya laakiin wuxuu dawo u yahay cid ku amal falaysa ee ku dhaqmaysa ayuu dawo u yahay sida awgeed inaan quraanka akhrino bishan ramadaan waa laga maarmaan waxa loogu abaal gudayaa qofka quraanka akhrintiisa joogteeya in la yiraahdo aakhiro اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أبالكاغو هي درجة waxay ku eg tahay aayada ugu dambaysa ee aad akhrido sida awgeed waxaan u baahnay quraanka oo dhameystiran inaan akhrino si aan darajo taam ah oo kaamila aan u helo Uthman wuxuu radiyallahu anhu law taharat nufusuna ma shabaat min kalaabillah nufuusteenu haday saafi tahay kama dharagteen ilaahay kalaamkiisa ayuu yiri ibn qayyim wuxuu yiri rahimahullahu ta'ala man lam yashfihi alquran qofka aanu quraanku daweynin ilaahay ma daweeyo qofka aanu quraanku ku filaanin ilaahay kuma filaado ayuu yiri ibn qayyim al-imam az-zuhri waxa uu yiri bisha ramadaan wa bishi quraanka iyo sadaqada wax kale ma jiro ayuu yiri shahru ramadaan shahru qur'aan wa it'aamu ta'aamin la thalitha lahuma amasha ugu qaalisan uguna qiimi badan ee bisha ramadaan ilaahay loogu dhawaado quraanka oo la akhriyo iyo sadaqada weyn hadii aan eegno dadkii wanaagsanaa ee salafka ahaa sidee bay bisha ramadaan ay quraanka ku ahaayeen al-imam Shaafi'i waxa la sheegay inuu quraanka akhrin jiray 60 jeer inuu quraanka dhameynayay al-imam Malik wuxuu ahaa ku bisha ramadaan quraanka u khaalis yeela ayuu ahaa oo amasha kale oo dhan joojinayay idan alaaqo yaani gaar ah ayaa ka dhaxaysa bisha ramadaan iyo quraanka
وبشي إلهي وقرآن كسودجي أيو أسودجي الضومدي سأيو أسودجي وإلى لنو لنا بشهر رمضان ونسيقارا أن أولنو لنا بشن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.